Muuqaalkan gaaban waxaa kuu tusi doonaa sida aad website-kaaga ama ganacsigaaga ugu samaysan karto logo qurux badan. Si aan u samayno logo, waxaan isticmaali doonaa Canva. Canva waa graphic design tool taasoo aad ku qabsan kartid wax kasta oo aad ugu baahan tahay graphic design, haddii ay ahaan lahayd video editing, sawirrada iyo logooyinkaba sida loo sameeyo. Website-ka Canva booqo canva.com waaye, kadibna iska diiwaangeli. Ugu horreyn Canva homekiisa markaad joogtid, waxaad sameysaa meesha ay ku qoran tahay search-ga. Waxaa ku qortaa loogada aad u baahan tahay nooceeda. Tusaale, hadda waxaan u baahanahay logo oo magaca website-kayga. Waxaan gelinayaa xarafka koowaad oo magaca website-kayga oo ka bilaabanayo, kadibna waxaad raacaysaa waxa rabtid markaad gelisid logo raacsii. Kadibna enter taabo raadi. Kadib waxaa ku soo baxaya templates badan, logooyin badan oo horey loo sameeyay oo diyaarsan. Kuwa qaar waa free, kuwa qaarna waa lacag. Haddaa lacag bixisay Canva badankooda ayaga dhan waa adeegsan kartaa, laakiin haddii aad free Canva hadduu free yahay, kuwa qaar le aad isticmaali kartaa. Midkii ka cajabis meeshaas dooro loogada u baahan tahay. Hadda tusaale tan koowaad ayaa aniga cajabisay. Ku dhufo kaliya ku sii midii ku cajabiso. Kadib saa rabtid aad u customize kartid. oo horreyn waxaa sameysaa waxaa iska bedeshaa magaca logada ku hoos qoran. Waa qasab iska bedel. Waxaa ka dhigataa logadaada magaceeda ka dhigo, magaca website-kaaga ka dhigo. Sidoo kalena tagline-ka hoos qoran waa iska bedeli kartaa. waxaa rabtid qor ayadana. Marka intaas sameyso waxaa u imaadaa sawirka kaliya ku sii. Markaa ku siisid kalarada meesha saaran kor ayay ka soo baxayaan. Kalarka rabtid u bedelo. Kan pinki aan ka dhigno hadda. Kan kalena oo cagaarkan waxaa ka dhigtaa waxaa rabtid ka dhigo. Saa rabtid ka yeelo customize. Sidoo kale waa weynay kartaa farta haddaa rabtid, waana yareey kartaa. Markaad dhamaystid logadooda, markaad dhamaystid oo aad rabtid inaad soo degsatid, waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay share oo kor kaaga soo muuqanayso. Kadib waxaad kasii tagtaa meesha ku qoran tahay download. Downloadka markaad taabatid, meeshas ugu horeyso tick saaro haddaa rabtid logada inay background dhidan inaysan lahaanin, background-iga transparent inuu noqdo. Intaan kale optional waa iska dhigi kartaa haddaa rabtid. Kadibna waxaad taabataa download. Si automatic ah ayuu kugu soo dejin doonaa. Logada haddaa fiirsid background-iga transparent waaye, ma arkaysid. waa kaasa. Tusaale kale, haddii aad u baahan tahay online store camal ama e-commerce, meesha waxaad ku qortaa search-ga online store, kadibna waxaad raacaysaa logo. Sida data camal waxaa ku soo baxayo templates badan ku soo baxayo. Template midkii ka qanciyo dooro. Kuwa waa free, kuwana waa lacag. Sida data camal template ka qanciyo dooro. Markaad dooratid customization ku samey kartaa. Magacaas iska bedel. Marka iska bedeshid, sidoo kale tagline-ka iska bedeli kartaa. Sidoo kalena waxaa iska bedeshaa kalarada image-ka. Waxaa laga yaabaa in hore loo qaatay image kalaradiisa iska bedel. Markaad dhammaysid share meesha ku qoran tahay taabo. Kadibna waxaad taabataa
download si aad تعمل ماشي تكسر kadibna waxaad taabataa download wax walba oo u baahan tahay waa kaas hadda kadib uma baahnid inuu qof looga kuu sameeyo loogadii aad rabtid adiga aad samaysan kartid weliba si easy ah intaas ayuu kaga yahay muuqaalkeena maanta subscribe noo saar haddii aad channelka cusub tahay